Assalaamu calaykum asxaabta ku soo dhawaada muuqaalka maanta fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato imaasha YouTube channel subscribe oo saaxiib ka dhigo channelkan si aysan ku dhaafin muuqaalada xiisaha leh aan maalin walba soo dhigo halkan mahadsanid ku soo dhawaad muuqaalka maanta muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay reaction aan ka bixinayo su'aalo cajiib ah oo la weydiiyay Sheekh Usuuli sheekha waxa la weydiiyay su'aalo adag iyo kuwo fudud oo iska caadi ah laakiin su'aashii ugu adkeyd ee sheekha la weydiiyay waxay u dhacday sidaan sheekh waxaan ogaa adoo miskiin ah oo aan waxba haysan haddana waxaa tahay qof taajir ah oo la jaamacado siday ku dhacday inaad taajir ku noqoto muddo yar su'aashan waxay ahayd mid ku socota sheekha laakiin sheekha waxa uu ka bixiyay jawaab aad u wanaagsan bal ila daawo jawaabta uu su'aashaas ka bixiyay sheekha sheekhow waxba haysan oo miskiin ku ogaa milyaneer adigoo noqday oo jaamacadiyo ayaanu aragnay xageeba waxaasoo lacag sheekh ka yimaadeen مليونير ناه عدينا كارتا إلهي قد يقول مليونير وعدان كوفيد نوبين مليونير نمضى لكن هذه عدين كارتا أنا مليونير نقضي يا هذه مليونير أنا نقضي عدينا على قربات ديك الأفكار حقوقون وحهوبين ما يتى سعودي ما جامعة قار كابل الصول هذا جامعة قار وحل كوبحي وحن كوبحي ما أقصد هذه وحنا قالوا وح أنا وحكي قاذنين ما حكوا أقصد إن أنا ويتسم كوفعنا معيري إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا إلهي ساسول أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين سؤال دس كما بقيس تقلين نعم ألو ها waxaan ku yiri sacuudigaas lacagta adiga su'aal ay weydiisay maqaata tirmayan ku yiri xaq awlaadina su'aal weydiisay laakiin inaad tuhuntid aad tiraahid waxa leedahay si gaar iyo uma daartid banki waxigan ku su'aashan sheekha waxaa soo weydiiyay nin oday ah sida aan codkiisa ku dareemay su'aashana waxay u dhacday sidaan sheekh beri hore anigoo askari ah ayaa waxaan ul ku dhuftay qof anigoo ka reebayay ficil xun uu sameynayay qofka waxaana u digay dhowr jeer laakiin wuu iga diiday sheekh maxaan sameeyaa qofka maalinta ay cafi ma dhihin bal ila daabo jawaabta uu sheekha ka bixiyay su'aashaas الشيخ أصولي الله أكبر walaalkay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo anigoo waqti hore anigoo askari ahaan beri anoo hargeysa joogaa la yidhi biyo dhaami dad biyo u dhaami waa garta saan biyo u dhaaminaya anoo biyihi dadku shubaya nin dhallinyaraahi xoog inta soo galo dadkii kala daadiye warka joog intaan aw dadkii dhan inta soo dardaro xoog ou dadkii daadiye waa garta marka dushiisaan saaray ulaan wataan bax ku siiyo labada garab waa garta waa cabaaday waa orday waa garta maalintaasaa iigu dambaysay araggiisa mana aqaano dadka kama aqaan maxaa ii furan oo samayn karaa lacag sadaqay usad u niyeyso insha allah okay wallahu ah su'aashii saddexaad ee sheekha la soo weydiiyay waxaa ka mid ahaa laba su'aal uu sheekha soo weydiiyay Shiine Coley Shiine waxa uu ka mid yahay youtuberada Soomaalida Shiine Coley su'aalihiisu waxay u dhaceen sidaan sheekh waxaan ahay musharax madaxweyne ka waran haddii aan lacag u doonto wadamada Carabta su'aasha kale ee uu Shiine Coley soo weydiiyay sheekha waxay ahayd sheekh mar walba waxaan been ka sheegaa da'dayda taasina dambi ma iga soo gaaraya haddaba sidee ayuu sheekha ugu jawaabay su'aalihii Shiine Coley bal ila daabo jawaabta uu sheekha ka bixiyay su'aalahaas sheekhow nin caan dhalay oo Shiine Coley la dhaho baan ahay waa ku salaamay ilaahay ha ku barakeeyo balaaqa ilaahay ku dhiibay sheekhow laba su'aalood baan qabaa musharax baan ahay madaxweynaha Soomaaliya doonayaa marka haddaan musharaxiinta nahay waxa khasaba in qofku wadamada Carabta iyo wadamada dariska ah xoogaa lacag ka sii qaato oo tartanka ku galo oo codadka ku iibsado aanu wadanna kuma xirni laakiin haddaan barbaaraya haddaan meelaha sii maro wax ka sii helo oo dalkii aan geliyo lacagtaasi ma xaraan ba musharaxiinta oo dhan aan arrinta ka siman su'aashayda labaad waxa weeye afartankii waa dhaafay laakiin waxaan jecelahay dhalinyarada inaan ka bixino 20 jir la fila tagtay baan sheegtaa haddaan de'dayda maaragtay dhowr jeer baan been ka sheegay dambi ma iga imanaya نعم خير الله كسي ان حقيقة مسألة حكمك هذا كورنا ما كهذا waxaan niri xukun qof inuu dalbado iska dhaaf in lacag ku dalbatide ina qolka xukunka raadisid nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu dhaafaya qofka xukunka dalbado dadka inay ku doortaan ama lacag raadis ma
haddaad laaluush bixisidna aad tiraahda ama carabka keen ama dhididkaada ku shaqeeya kursiga waa dhibaatada soomaaliya hadda naga haysa kamid tahay in dadka tartamaya dhan lagu faanayo hebela khaliijka qadara wadato iyo dubaya wadato iyo kaas isku wada mid waa kulligood wax islaama malaha xaaraan weye waana dhibka haastay kamid tahay qofku markuu xaaraan ku koro meesha dhibka ma baxayo markiis lakin ninka markuu xalaal ku koro ilahay u saqirayo marka ma banaano waxaa sheegaysa ama xukun doon ama haduunin aniga ma aqaan waxa hadafkaa ka leedahay laakiin su-aasha caam ahaana ugu jawaabaya ta labaad beenaa sheegta been ma banaano ama da ha ku saabsanaato ama meela ka timid ha ku sheegnaato been ma banaano qofka mu'minka ah nabiga alayhi salatu wasalam waa diiday inuu kadaab u noqdo qaa'im waana wuxuu yidhi waa bakiil waa naqon karaa qofka mu'minka fuli waa naqon karaa laakiin kadaab ma naqon maxay aayat almunaafiq ayaa waxa ah kadabka ku jira ida xadatha kadab marka soomaali haddaan nahay kursigaasana lagu ibtileeyey sidee rabnaan ku raadsanaa qabiilaan ku raadsanaa lacaga su-aasha afaraad qofkan wuxuu rabaa inuu su-aal weydiiyo sheikha laakiin waxa uu garan waayey magaca saxda ee sheikha wuxuuna dhowr jeer ku celiyey sheekh cusmaan busiri miya sheikhana waxa uu isku dayayaa inuu u sheego magaciisa saxda laakiin maxaa kala qabsaday qofkan iyo sheikha aad baan u qoslay markaan arkay muuqaalkan sheekh ciyaarta naga dhaafno ugu dambeyntii sheikhu wuu ugu jawaabay su-aashiisa الو ها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ عثمان بصوري مياه اصولي ها يا اصولي وبصوري ما اصولي شيخ عثمان بصوري يا ربي بصوري ما اصولي واصولي بصوري يا اخي حياتنا كده في هذه يا اخي هي اساها كل الله عثمان بصوري هي بصوري halkee ka keentay بصوري ma garan haye magaca ka qaldan sax laakiin waa asagii السلام عليكم سيداي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفوري مياه. ها أصولي وهذا صح نعم. هذا صحيح. ها في عنا. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وحن كويتنا. ها. اوكي هذه ما ينوي وحن كويتنا شيخ دور أنا ويت خبر. su-aasha shanaad su-aashan sheekha waxaa soo weydiiyey qof sheegay inuu ka mid ahaa burcadbadeedda su-aashana waxay u dhacday sidaan sheekh waxaan ka mid ahaa burcadbadeedda waxaana meesha iga soo galay dhaqaalo badan waxaana ka mid ahaa ciidamada ilaalada badda soomaaliya sheekh marka lacagahaasi ma xaaraan baa mise waa xalaal bal ila daabo jawaabta uu ka bixiyey sheekha su-aashaas su'aal baan qabaa sheekhow haye dhalinyartii badda ilaalinaysa baan ka mid ahaa muddo dhexdii ahayd markaa halkaa xoogay dhaqaalaaba iga soo galay lacagtaasu ma xalaal baa mise waa xaaraan sheekhow ilaan waddankii baa lagu soo duulay oo kalluunkii baa la iska buranayo oo waxaa lagu daadinaya sun marka xisaabaadka halkaa iga soo galay bal war iga sii sheekhow xaqiiqatan magac fiicana u bixisay dhalinta badda ilaalinaysay haddaad saas niyadiina ay tahay lacagtiin waa xalaal insha allah ciidankii baddaana sheekh ciidankii badda maadaama jamhuuriyaddeena burburtay ilaahay wax ka baryayaan oo ciidankii badda iyo ciidankii cirka allah soo celi amiin allahuma allah soo celi marka laakiin waxaa wanaagsan markaas haddaad ciidan tihiin dowladdii aad u shaqaynaysa inaad tiraha lacagtaas soo qabana idinkana abaalmarin laga siiyo ilaa ummadda u shaqayseen xoolaha dhan ummadda askale kaligiin ma lehdin dadaalaad samayseen abaal waa ku leedihiin su-aashii lixaad ee sheekha la soo weydiiyey waxay u dhacday sidaan sheekh waxaan waddankii soomaaliya ka soo guursaday gabar laakiin gabadhii waxay bilowday wareeg iyo qahar aan loo joogin sheekh maxaa tolaa aan sameeyaa su-aashan uu qofka soo weydiiyey sheekha waa uu dhibsaday maxaa yeelay waa shaqo isaga u taalo qofka sheekhyadan ma aha kuwa dhiirigeliya kala taga qoysaska soomaalida ah laakiin taa beddelkeeda sheekh waa uu waaniyey qofka su-aashiisana wuu uga jawaabay bal ila daabo jawaabta sheekha iyo dhibaato iyo qaxar iyo waxaan loo baahnayn howl adig kuu taalmaa sheekha weydiinaya marka ya howl adig kuu taalmaa su-aal maya waxaan raba sheekhow inaan dukaan weyn intaan u furo dukaanka taa waa baabaysay marka inaan ka furaa rabo maharkeeda marka ma igu leedahay mise waxaa waaye waxaasay baabaysaan u dhaafa maharka ku leedahay maharka waxay baabaysay labay kala tahay waa u qabsan kartaa waxay baabaysay laakiin maharka waa waajibka ilaa haddii ay ku bedelato furinkeeda gaar way kaas haddii ku bedelato furinka ay ku tiraa maharka waa kaaga tanaasulay ifur gaar way laakiin maharkii iskuma xirna iyo waxay baabaysay iskuma xirna maya waxaan markii dukaankan ku wareejinayay aabbaheedaan noolaay waxaa markhaati ugu dhiga aabbaheed dukaankan ayadaa iska lahannahay laakiin ani mahar ima weydiin karta haddoo ka baabao dukaankiina way baabay haddaad bixisay waxaad bixisay iyadaa iska baabi'isay marka adi waxaad leedaha maaha wax haddaad bixisay qofku inuu soo ceshta maaha
waxaad bixisaa eeyda askala daatira eeyda aska baabiisay adiga marka go'aanka waxa leedahay inaad ceshatid inaad furtada askala go'aanka laakiin xagga meherka hadduu furinka adiga dhinacaaga ka yimaado oo adiga rabtid gabadha ciladaha hadda sheegaysa arti inaad u furtid meherkeeda waa leedahay hadday laakiin dhinaceeda ka timaado furinka ay ku tiraa walaalo anigu kuma rabo oo aad tidhaahid ma i rabtid miya haa meherkaaga maka tanaasulay haa oo ku heshiisan saas meher makuu wadaa laakiin haddii adiga dhinacaaga ka furaysa meherkeeda waa leedahay wixii laakiin oo hore aan dhahay waxba kama jiraan may waxaas waa siis waaba sii aabaheeda u sheeg manino iidaa iskaleed may waasi ma waxaan dhahay dukaankan ayadaa iskale meherkeeda ahaana u qaadan ha meheri qaadat maa tiri markaas ma u sheegtay markaad dhiibaysa markaas meherkeeda waa hormarsatay markaa haddii saas jirta meherkeeda haddaad waxaad bixisa meher waaye aad tirahayd khalaas adaa cayini kara tacyiinka adaa iskale su-aasha toddobaad ee sheekha la soo weydiiyey su-aashan sheekha waxaa soo weydiiyey haweeney su-aasheedan waxay ahayd sheekh ninka xaq muu ku leeyahay in xaaskiisa ay cunto u kariso ma aayad sheegaysa ayaa jirto haddaba sidee ayuu ugu jawaabay su-aashan sheekha bal ila daawo su-aal mubaaxoo raba dadkan inay ka faa'iidaystaan haweenayda ninkuu qabo ma aayad sheegaysaa jirta inay cuntada u kariso nacam maya wax sheegaya ma laakiin macruuf waa curfigay ku dhisan tahay wacaashiruuhuna bilmacruuf aayadda waxay soo gelaysaa ku dhaqa wax curfiga laisku yaqaan wacaashiruuhuna bilmacruuf ilahi wuxuu leeyahay wixii laisku yaqaano dhaqan ah lagu dhaqo marka dhaqanka waxaa kamid a inay wax isku kariyaan laakiin wax ku waajibinaya ma jiro laakiin sida iyada ay mashruufka marashada ugu leedahay oo anfaca inuu cunto siiyo inuu meel fiican degto ay ugu leedahay isaga inay cunto u karisto uguma lahan maya kuma jirto cunto karis laakiin waxyaabo badan ku jiraan saasta haddii fiir curfiga haddaa la qaadin gabadh waxaa imaanaysa bacd alfuqahaa waxay qabaan gabadh hadday jirato inuu aabaheedii hooyadeed u geeyo ilaa soo daaweeye soo celiyo daawadeeda oo bixinin ma samaynaa saas su-aasha sideedaad su-aashan sheekha waxaa soo weydiiyey haweeney su-aasheedana waxay u dhacday sidaan sheekh haddii aan dhinto ma lay dhexlayaa oo xoolihii aan ka dhintay aniga maa leh mise dadka i dhexlaya ayaa leh su-aashan waxay ahayd mid cajiib ah oo ku saabsan qofka dhintay xoolihiisa iyo cidda dhexlaysa bal ila daawo jawaabta uu sheekha su-aashaas ka bixiyey tan koowaad midda koowaad aniga haddii aan dhinto oo waktigayga ay noqoto dadka dhaxalkayga leh anoo dhintay ma la dhexlayaa maya qof dhimato waxaad waa milkiyada waa ka guurtaa dadka kale ku guuray dadka dhaxlay ku guuraysaa marka anigu dhaxalkaas waxba kuma lihi adaa lagu dhaxlaa soo ma anaa lay dhexlayaa maya waxaa ku leedahay male waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo lacagta ayuutada waxaa ku leedahay intaad dhimanin maalkaaga waxaa xaq u leedahay ilaahay ku siiyey inaad saddex meel hal meel aad sadaqaysid إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم وكما قال صلى الله عليه وسلم نبي وحول لي أمد إلهي وحول يوصل دقيستي مالكين سدح مال وثلث كصومالي إلهي إنه قفك إنه قدر دارمو وإذا مالكاس أما وقف على قدقة أما مساجد اللي قدرة أما مساكين تأثر سينا أما عيلة اللي قضاء مالكيس حقه له ثلث سدح مال هل مال حقه له إنه صدق يستي لكن واحد حل على هذا مال su-aasha ugu dambaysa ee muuqaalkeena su-aashan sheekha waxaa soo weydiiyey qof raba inuu ogaado in sadaqada la siin karo qof waalan oo cunaqaad waxayna su-aashiisa ahayd sidaan sheekh qof waalan oo cunaqaad sadaqa ma siin karaa bal ila daabo jawaabta uu sheekha ka bixiyey su-aashaas maasha allah ilaah nii xafido waxaan ku weydiinayaa nin qaylo oona waalan sadaqa ma ku kacdaa نعم ما حد وكو قعدها هدي فقير وياهي ومسكين ياهي إلا هدا أدو بغض الصدقة إنه كاشنايو قاد كاس مركز عناهن وسي سكال وسي هدو أدو بقيس لكن والنا شذا مركز منك والن واب أولى محايا نين شقيسة كرمه نينك وال وانين ميل وحكاه الأهلين إلهي وكان رفعي قلمك وعلى رفع عنه القلم مركز كالمين نكاس إن شاء الله muuqaalkan intaa ayuu ku egyahay fadlan haddii aad ku cusub tahay janalkan ku soo biir oo sabscribe dheh muuqaalka xiga ayaa noo balna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu